jamaal shaki miyaa galay waxaana habboon ayaa xiise gooni sii lahaanayo marba mar kasii dambeyso. habboon ayaa markeedii ugu horeysay banaanka soo baxayso iyadoo soo raacayso zubeer iyo faa'iiso maadaama loo ballan qaaday in shoobin loo sameynayo. habboon marka hore way ka diidaysaa zubeer shoobinka, balse iyadoo ka cabsanayso in faa'iiso ka shakiso ogaatana in habboon ay dhuumanayso ayaa ogolaanayso inay raacdo. iyagoo subermarketka ku dhex jiro oo adeeganayo ayuu jamaal kasoo muuqanayaa meesha. habboon ayaa naxiso, zubeer ayaana ka hortagayo isagoo u sheegayo inuu aabihiis u adeegayo, balse jamaal ayaa u muuqda qof uu shaki galay, waayo markuu zubeer ku dhaho habboon waan raadinaynaa una jawaabaya anagoo og sida uu jamaal noqonayo marka lagu soo sheeko qaado habboon arrimaheeda, weliba waqti xaadirkan oo ay isaga iyo habboon muddo kale maqan yihiin. jawaab la-aanta oo kaga dhaqaaqay zubeer ayaana wax badan la iska weydiiyey, iyadoo dadka badankiisa ay u fasirteen in jamaal uu shak ka qaaday zubeer. saan wada ognahay markii ay jamaal iyo zubeer ku kulmaan kafteeriyaha, jamaal ayaa hadal ku xadayo zubeer, kadib zubeer ayaa naxayo. taas waxaa kasii daran tan subermarketka, waayo zubeer wuxuu habboon soo sheeg qaadaya iyadoo aan la soo hadal qaadin. sidoo kale jamaal wuxuu u muuqdaa qof habboon muuqeeda arkay, inkastoo aysan aqligal ahayn jamaal oo habboon arkay haddana ka aamusay. dabcan wax kasta way dhici karaan, wax kasta ay dadka daawadaasha saadaaliyaan ayna run noqon kara, sidoo kalena been noqon kara. haddaba saaxib, sidee u aragtaa adiga ficilka jamaal uu ku dhaqaaqay? qaybta commentiga nagula wadaag fikirkaaga, waan kaaga mahad celinayaa daawashadaada. bye.